inuu noo soo noqdo mar kale iyo mar kale iyo mar kale sababtoo ah waa experience nin experience le wadanka hadda adduunka wax ka barato PhD qaadato patchwal waxa arta qaado waxa lagu leeyahay experience ma leedahay maya iska soo lagu leeyahay wax yara u dhiman hadda inuu qof iyo doorasho aadno dhalinyarada uga hadlaa 24 hours dhalinyaradiina wax baratay oo shaqo la'aanta ah inay shaqo helaan marka waxaan ugu taaganahay asaga waxa waaye annaga dheel ma rabno nin oo la soo shuuteeyo ma rabno waxaan rabnaa ninkan annaga wax la taaban karo aan ka aragnay marka maxamed cabdullaahi farmaajo annaga waxaan ku dooranaynaa inuu na tusay wax la taaban karo marka waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh oo soo baxday waxaan leenahay shicibkiina ha hakranina dadaan soo doortay shicib ah wadan baan soo doortay oo ka soo baxdeen waxa waaye ninka aad dooranaysaan inaa iska fiirisaan aana ogaataan ninka aad dooranaysaan ee shicibkiina rabaan inaad nala doorataan oo nala qaadaan taasaan nigaga baahannahay ninka annaga aan rabno shicibka ay rabaan yar iyo weyn ee u taagan yihiin haddaan la is-indhisaarin oo lacag la raacin oo loo hiliyo wadanka waa maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan kaloo la dardaarmaa 5 xildhibaan oo qusayso banaadiriga oo maanta soo baxday waxaan leeyahay 5tiina banaadiriyow annaga waligeen qof kale ma raacin qaranaan nahay qarannimaan la deeqdo always dadka qaranka difaacdaan nahay marka waxaan leenahay 5tiina hana qiyaamina ku ugu rida maxamed cabdullaahi farmaajo taasaan leenahay hadaa shicibkiina nahay dalkan cid kale loo haayo oo aan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ahayn ma jirto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee hanka iyo qabka ee nageliyay dareenka shacabka iyo dareenka ummadda Soomaaliyeed ba waxa weeye ninka waxa weeye dareensiiyay in ummadda Soomaaliyeed ay dalkan ayaga leeyihiin ninkii waxa weeye dareensiiyay inaanu nahay dawlad Soomaaliya oo awood badan oo xoog leh